ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة xaaskaaga xiriiri xalaashaadii weeye xiriirkeeda ha goynin xumaanaad kaga dhowrsataaye xaqeeda ha seejin oo xaasid ha ku noqon xilkii alle ku saaray xijintiisa weeye xayaati mooyaane hadal xinle ha ku dhihin xiriirka idan dhexeeyo xarigiisa weeye inta aadan u tagin ama aadan jimaacin xaaskaaga dheh kelimaadkan kadib bilow jimaaca haddii aad samayn weyso arrinkan ogow in shaytaanku kula wadaagsanayo ama kula isticmaalayo xaaskaaga adiguse kama warqabtid waana xaqiiqo dhab ah alle isagoo la hadlaya shaytaanku wuxuu ku yidhi suuratul israa aayadda 64 واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم ku duufso cidaad karta oo ka mid ah bini aadamka codkaaga kuna weerar fardahaaga iyo lugtaadaba lana wadaagso xoolaha iyo carruurta sida uu kuula wadaagsanayo carruurta ayaa ah marka aad u tegaysid xaaskaaga adigoon xusin bisinka iyo ducadii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu sheegay ayuu isna dhankiisa ka wadayaa howsha hadduu alle meeshaas carruurka qadarana qayb ayuu ku leeyahay sidaa darteed si aad uga badbaado dhibaatadaas aadka u xun inta aadan bilaabin jimaaca raac tilmaamahan rasuulku wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam midkiin marka uu doono inuu jimaaco xaaskiisa hadduu yidhaahdo بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هدو الله أولادك قدر ماشاس شيطان كما دوايا وليكيس يعني الدين تيسا جركيسا يو عقلي سبا وحدبها أمجيسان كرو محايا لي وحالو حرسي حري مرك وعلوش قلاي حديث كان وحاوري بقاري إيا مسلم أغو حرسي حرك رسمي ودعادا ما أنا حرق ير عرورة قعمها لو حرو